waxaana jeceshahay inuu ku ogolaansho hooyadii kaaga qaado ها هويدي هاي walaalkii haduu maxay ku kala duwan yihiin hooyada iyo isaga hooyadii furitaan baba sabab saaba waxa muhiim ah in loo daayo inta guriga mas'uulka ka tahay imika odayaashan fadhiya waxaad muddo xogeen hablaha yara cadaadinayeen oo aragtidooda la yaabaneen ma ahayn aragtida qofka bini'aadamka la yaabo isbuucan dhaxdiisa arin markaa aad iyo aad loo wadwaday oo ahayd dood markaa TV ka mida uu qabtay oo laga doodayay sodohda inanka dhashay gabadha la qabo guriga markay imaanayso in idan iyo fasax loo weydiinayo gabadhii guriga lagu qabay dhaqan islaam ma aha sida arkaysaa dhaqankeeni suubanaya Soomaalina ma aha TV-ga qabtayna waxaan dood la gelin buu dood ka dhigay dood marka la qabanayana maqsadkeedu waxay tahay in wax laga faa'iido wax sharcigu mudnaan siiyay oo uu siiyay sharcigu mudnaan saraysa in dood la geliyaa waxa markiiba in fahmaynaa in dhaqan uu yahay gharbi dhaqan aan shaqo ku leenahay sodohdu waa hooyo sida farabadan oo markaa dooda fadhiyay dumar iyo rag bas ku jiray ka waramayeen Ilaahay khayraasi gabadha hooyadeedo kala ayaa inanka hooyadiina ay la mid tahay inankuna hooyadii ama waalidku manzilada uu taagan yahay sharcigeena ayaa aad iyo aad inooga waramay nabi maxamed baa la weydiiyay calayhi salaatu wassalaam oo nin ayaa weydiiyay xadiidkii markaa Abi Hurayra waxa uu ku rasuulkii Ilaahayow yaa dadka igu mudan cid aan xigsado oo soo dhawaysto oo akhlaaq wanaagsan kula dhaqmo nabigu jawaabtu bixiyay waxay calayhi salaatu wassalaam ummuka hooyada wuxuu yiri thumma man cid kale ma jirtaayo aan soo xigsado oo soo dhawaysto oo aan akhlaaq wanaagsan kula dhaqmo nabigu mar labaad wuxuu ugu celiyay ummuka hooyada mar saddexaad buu weydiiyay nabigu wuxuu ugu celiyay hooyada mar afraad buu weydiiyay nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wassalaam aabaha mudnaanta waxa la siiyay hooyada iyo xaqay leedahay hooyadu markaa waa qiimaha la weeyaan haddii qiimaheeda iyo qadarkeeda la garan waayo oo gurigii inankeedu lahaa la yidhaahdo fasaxa looga weydiiyo markay imaanayso gurigii inankeeda macnaheedu waxay tahay in markaa lagu dhaxabuurayo hooyadii iyo inankeedii in markaa waxa weeyaan caaq isku noqdaan oo ilmihii hooyadii caaq ku noqdo oo guriga uu leeyahay sababtii uu noqdo inuu hooyadii caaq ku noqdo markuu inantu soo guursaday uu weydiinayo gurigeeda inuu timaado fasax marka ay weydiinayso walaalayaal arinka caynkaasi waa dagaal inagu socdo weeyaan kuwa iyo kuwa badanba waa jiraan laakiinse waxa habboon TV-yadu markay soo gudbinayaan dadka afkaarta quracan wata ee qarbiga ah inay ummadda u soo gudbiyaan ma aha ummadda wax islaamkooda iyo diintooda wax u taraya inay u soo gudbiyaan ayaa habboon biidnillaah waxaan rajo weyn ku qabaa in dawladdu markaa arrinka caynkaasiya ay hoos weegi doonto maadaama mas-uul ay ka tahay dadka dhaqankooda iyo diintooda wixii wax yeelaya inay ka qabato